ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. tartankan oo ahaa mid quraan akhris ah oo socday muddo 3 maalin ah ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Baraabe. Tartankan oo lagu dhiirigelinayay ardayda ka soo qayb gashay tartanka quraan akhriska ah ayaa ujeedadiisu ahayd sare u qaadista barashada iyo fahamka diinteena suuban. Ku dhawaad 32 arday ayaa ka qayb galay tartankan quraan akhriska ah, waxaana ka soo qayb galay maamulka madrasada Al-Quraan ad-Dacwa, maalgeliyaha barnaamijkan Abdulqaadir Sheekh Maxamed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoona halkan lagu bixiyay abaalmarino kala duwan sida kaalmaha 1 ilaa 3 sida uu ku dhawaaqay maamulka tartanka. maanta oo dhan Allah igu sugnaatay, Allah noo suurtageliyay imtixaankii 2 maalin ka hor aan bilownay maanta inaan xafladiisii joogno. alxamdulillah, anigoo ku hadlaya afka guddigii qaadayay imtixaanka waxaan rabaa inaan dhowr wax sheego oo midda ugu horeysa ah ardaydii ka koobneed 32 qof waxaa laga rabay inay ka soo baasaan ama kaalin ay ka galaan 12 qof. 12 qofna waxaan ku soo saarnay 4 qof anagoo ah qof aan naqaano ama qof si gooni noogu dhow kuma jiro. waxaan ku soo saarnay tashi iyo dadaal iyo sharciye anaga noo qornaa. waxaan idinka codsanaynaa qof alla qofkii soo baxo inaan ku qanacdaan, raadina aan nooga ahaataan. qof gooni ah oo annaga dan aan ka lahayn malaha. maalin iyo habeen iyo maalin kale waxaan u fadhinay inay si cadaalad wax ku dhamaadaan, waana rajaynaynaa inay ku dhamaan doonaan insha allahu tacaala. midda labaad, waalidiinta waxaan u sheegayaa maanta hadduu ilaahay raalli ka dhigo 12kaas qof halkan ilaahay u qadaray inay kaalin ka galaan farxadda ay farxayaan. waxaan ka codsanayaa macallimiintii wax soo bartay inay la wadaagaan. waxaa caado ah oo inta badan la sameeyaa ardayga markuu kaalin galo wixii la siiyo waalidka waxaa waaye waa u dagaalama, xataa macallinka inuu inkiro ku sigana. waa waxaan ilaahay wuxuu ku siiyo adiga uma tashanaynin, haddana ilaaha kuu keen. adiga waxaa kaaga dadaal badnaa oo kaaga mudan markii si loo fiiriyo macallinkii wax baray. marka macallinkii wax baray xaq buu ku leeyahay. waxaan idinka codsanayaa macallimiinta inaydin hilmaamin oo xaqooda aad farxadda dhinac ka siisaan. ayagaa ku soo dadaalay, maanta ayagaa idinkaga murug badan inay kaalin galaan iyo inaysan galin. marka waxaan rajaynayaa arrintaas inaad si gooni u fiirisaan hadduu ilaa yiraahdo. waxaan kaloo halkan mahad ballaaran ooga celinayaa walaalka khayr allah si barnaamijkan quruxda badan halkan ku sameeyey. maanta hadday dad badan isku tagaan ay ka caajisayaan, keligiis u istaagay. wanaaggaas waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag khayrkiisa iyo iftiinkiisa aakhir iyo adduunya aad ku hesho allah kaaga dhigo. waa kalsooni iyo dhabar adeeg qof kasta uu muujin karin. qofka muujinaya waa qof ka duwan dadka kale ee ilaahay wax siiyey. waxaan leenahay baaraka allahu fiik, adigana allah ku barakeeyo, awlaadaadana allah ku barakeeyo, gurigaadana allah ku barakeeyo. saad quraanka u sharaftay oo kor aad ugu qaadayna ilaahay subxaanahu wa tacaala adna kor ha kuu qaado fi dunya wal-aakhira. waxaan kaloo halkan ugu duceynayaa dhammaan dadka halkan ka soo qayb galay bilowgii musaabaqada ilaa maanta joogay, maantana raba inay farxadda maqlaan. ayagana waxaan leenahay dembigiina ilaahay ha dhaafo, dadaalkii iyo sabarkii iyo dhabar adeegii aad cibaadada u fadhiseen ilaahay ajirkeeda ha idin siiyo. wiilasha dhalinyarta ah ee ayagana u taagnaa duubista iyo sabir qaadista ayagana waxaan leenahay khayr badan allah idin siiyo. ayagana dadka laga farxinayo ha lagu daro biidnillaahi tacaala. maalgeliyaha barnaamijkan Abdulqaadir Sheekh Maxamed ayaa sheegay in tartankan uu yahay tartan sanadeed loogu talagalay in sanad kasta la qaban doono, sarena loo qaadi doono tartamayaasha ka qayb galaya tartanka quraan akhriska ayna heli doonaan abaalmarino. maasha allah, Bakar Maxamed Bakar codkii oo mayinka ninka akhrinta quraanka maasha allah. Bakar madrasada 4 sano dhigaday baadiye lagu sheegay maasha allah. alxamdulilah garaytan idin wala barada codkeedii imay haddii jaaka madrasadana ahaalayn laakiin aran la qidar lahay aran lahay marka bashar Bakar
إن شاء الله حافظ القرآن نبو مصدر سكيدي تعلمت كل شيء هذا. حسن محمد عبد النور ما شاء الله قطب معان يا أخي ما كان معلم معه شيخ معه عبدالله مدرسته ده كان صوصارين. حسن محمد عبد النور ترتن القرآن كما كجراين لكن ما شاء الله أطر راح اللي كراهوي معمولها حسن لكن كل دولار أقول حسابتك إدر كل دولار سي ليس كأول مرة مكجور كل دولار أقول ما شاء الله سنة قدام ترتن كسكدراين الماء كترتناين حديثة قرآن كفسر كي سكدراين لكن اسم الاسكوفة داين صبرتين حدد سد برله كالكي قاعدة وصدون لما عيال أغرتين إن شاء الله سنة قدام بقول إما زاد لما بقول فداين مركة ماشي سد بر كدرارة لما أسبوع أسبوعين أنا وقت بدن فسع سوق هذا هذا بلا فرصة بكسي لكن اسم بدالة بدال كسنس كجيرنا سنة قدام القرآن لشيء مسكوان إن شاء الله ما دون كدين إسكدراين في استراحة القرآن لو كان فرصة بدل سلسية هذه قلبي ولا كده سلاهاي والبرش من دار كدرسي لهاي